مدن وزير dhowrkii maalin la soo dhaafay waxa joogtay magaalada Nairobi dalka Kenya shir ay joogtay looga hadlayo xagga maaliyadda shirkaas maxaa ka soo baxay wuxuu ku saabsanaa waxa weeyaan heshiiskii aan la saxanay hay'adda lacagta adduunyada ee la yiraahdo IMF oo ka soo bilaabmay May bishii shanaad ee soo dhaaftay ilaa bishii shanaad kale ayuu yahay marka hay'addu waxay u qaabilsan tahay adduunyada oo dhan lacagaha iyo maamulkooda iyo cidii wax lagu leeyahay dawladda lagu leeyahay halkii dawlad waliba lacagteedii ka oran lahayd ee baan waliba lacagteedii ka oran lahayd iyaga xil saaran iyaga marka wixii dadka lagu leeyahay dawladda lagu leeyahay iyaga dabagala iyaguna marka waxay tilmaami karaan wadankaasi inuu yahay wadan si fiican u socda deynta ama laga deyn karo ama deynta dib looga dhigi karo ama lacag kale la siin karo la caawin karo waxay iyagu yiraahdaan baa adduunku shaqeynaya hay'adda lacagta caalamku saasay tahay marka warqad baan la saxanay warqadan la saxanay maanta imtixaan weyn buu ahaa September bay marnoo yimaadeen September markii noo yimaadeen waxyaalo badan baa waligeed ka dhiman maanta laakiin 5 maalmood ayaan halkan wada joognay arbacadii laga soo bilaabo ilaa maanta soo gabagabooday wixii aan ku heshiinay oo ahaa dhowr iyo 20 qodob oo maamul wanaaga lacagta iyo corruption ko la tiro ay kow iyo laba ka yihiin ayaan mid walba isku taagnay state bilood ee dawladda joogtay wixii ay samaysay waxa ay sharafa inaan ku sheego inay mid walba ku qanceen wixii ay arkeen anagu waxaan u sheegnayna ma aha waa system naga dhaxeeya jiro ay ka eegayaan ya wixii na soo galay si habkay noo soo galeen inuu habsan banaan ahaa siday ku baxeen halkay mareen reportkii laga keenay wixii oo dhan baa laga shaqeynay 5 maalmood marka waxaan noo soo dhamaaday maanta in aan ku guuleysanay oo ay yiraahdeen Soomaaliya arintii looga baahnaa way sameeyeen dad fara badan baa isla sameyn kari maayaan ya anaga waxa naga go'oonayna sameyn kareen wax bini aadan sameyn kareen miya jiraade waa sameyn karaa waa isdhegatireen marka hore waa isdhegamarinayn marka shirku taas ku saabsan waxyaabaha aad ku heshiiseen ee maanta la hubiyo aad ku guuleysateen maxaa kamid ah waxa kamid ah lacagta ku soo gasha hal lagu yimaado macnaheedu yahay halkay ka soo gashay meel san banaano sax ah noqoto halkay soo gashay meel sax ah oo account-kaaga aan ahayn account-ka dawladda soo gasho sida u baxayso hal ogaado waa wan waxa kale oo kamid ah lacagta Soomaalida dawladdu ururiso inay wasaaradda maaliyadda kali ururiso oo aanay wasaarad waliba waxay doonto iska ururin oo aan company waliba wuxuu doonto iska ururin dawladda Soomaaliya inay ururiso marka kambaniyadii waxa ururin jiray waa inagii kala wada wareegnay dawladda meela hay'adaha dawladda qaar ururin jiray waa kala wareegnay taasina iyadana waxay noqotay wax wanaagsan waxa kamid ah in qof ku shaqeeya oo soo shaqeeyay bil iyo in ka badan aan mushaar la'aan ya taasina iyadana waxay noqotay mid sax ah oo aan ma garanaysa waxa kamid ah in account-yada sida loo maamulaya ay noqoto si la isla wada yaqaano taasina sax bay noqotay waxa kamid ah wax walba dalkaas soo galaaba account-ka dawladda inuu ku soo dhaco waxa kale oo kamid ah qof walba lacag la siinayaaba inuu account yeesho oo aan inta kiish lacag lagu qaado in meel la fadhiisto aanu dabeetana groupkii igu yeero intii timaadana si inta kale wuxuu dooro ku fulan taasina iyadana waxyaalo fara badan oo dhowr iyo 20 qodob oo saas oo kala ya ayaa ku jiray waxaan ku guuleysanay inaan imtixaankii baasnay heshiiskan dhinacna ka soo baxday maxaa dalka macna leh ugu fadhiya oo shay karta oo dadka Soomaaliya la wadaag karta laba arrimood baa ayaa ka soo baxaya midi waxa weeye in dalka Soomaaliya lagu kalsoonaan karo oo waxa qabta la ilaahay qaban karaan oo waxba xadina ay joojin karaan oo system loogu tala galay adduunka ay ku shaqeyn karaan taas waa koow weyn waana tan ugu weyn anaga ya ina anagu isku filaan karo inaan run sheegi karo inaan tuugada joojin karo inaan wax walba sida sax ah u sameyn karo inay taa maanta noo qiraan international community
oo yidhahdaan yes Soomaaliya can do it inay yidhahdaan taasi waa koow weyn talabaad inaan jidkii ku dhacnay si fiican ugu dhacnay cafiskii deymaha lanagu leeyahay taasina waa guul weyn ta saddexaad jidkii waan ku dhacnay haddaba waxaan doonaynaa kharash baan u baahannahay caawi baan u baahannahay marka haddaad dad lagu kalsoonaan kara noqotay haddaad jidkiina ku dhacday haddii halka ka horeysaana tahay sida qaamaha lagaaga dayn lahaa yaa dee inta ka horeysa in lacaga lagu dhiibo oo lagu aamino oo systemkeena wax la soo geliyo ayaa iyadana guul weyna saddexdaa arrimood oo ay ugu fiican tahay tan odhanaysa waa lana aaminsan yahay ayaan ka faa'iidey waxaa jirtaa waddanka in lagu leeyahay deymo fara badan suurtagalna ma ahan in maalgashi uu ka dhaco waddankan ama horumarin dhanka dhaqaalaha laga sameeyo arrinta deymaha in dalka laga cafiyo rajo aad ka leedihiin maxay tahay horta waxa weeye qorshaha cafiska deynta iyo adduunka kusoo biirku waxa weeye adigoo buur fulay oo kale ya buur fulay weliba cagaagan ya waa arrin adag weeyaan buurtii gunteedii oo dhammaan soo dhammaynay ilaa kugta fikta sare inaan u baxnaan rabnaa si loogu baxayaana waxa weeye inaan waxaa maanta aanu ku heshiinay dadkaas ku socono transparency-ga daahfurnaanta maamulka lacagta la wanaagsan qof walba uu xaq u leeyahay helo waxaanu xaq u leenahay xaq uma lihid taas horta inaan ku socono weeye ta labaad waxaan rabnaa waxa weeye dad kale lacagay kugu leeyihiin naga daa ma odhan kartid haddaanad adigu dadkaaga intaad lacag ka soo ururiso aanad kharashkaaga iska bixin soo maaha su-aasha lagu weydiinaya waxay tahay aan lacagta kaa daayey maxaa dadkaaga cashuurta uga qaadinaya adu haddaan laakiin dadkaaga waxa bixinayn ma waxaad doonaysaa dadka iyaga annaga heblaayalay jooga inay kharashkaaga bixiyaan dee wax soconaya maaha logic weeyaan marka waxaan wadnoo kale waxa weeye dadka Soomaaliyeed inay bartaan service waxay loo qabanayo inay iyagu bixiyaan waxna loogu qabto waxaan always ilaa waxa weeye annaga dawlad ahaan mas'uuliyad baa saaran dadka Soomaaliyeedna mas'uuliyad baa saaran annaga tan saaran waxa weeye waxay noo dhiibtaan sidii noogu dhiibteen inaan u maamulo sidii aan isla wada garanay ee baarlamaanka shacabku ansixiyena lagu qabto dii la doonaya wada lagu dhiso wadadii lagu dhiso iskuul lagu dhiso iskuulka lagu dhiso hospital lagu dhiso hospital lagu dhiso la arko wixii loo doonaya lagu sameeyo iyagana waxa saaran waxa weeye ta qofkii waxa yaabay inuu koob shaaha qofkii cabayaan oo yar ku daro iyo laga maarmaan adigu saas ku dhisay oo kaas dawladihii idinka horreeyey dabcan dawlad kasta marka ay waqtigu u dhamaado ama biluhu u dhamaadaan sanadka waxaa lagu yeeli jiray lacago mushaaraad ayaa shaqaalada ku yeeli jireen maxaad uga duwantiin adinku dawlad ahaan oo hadda aad qabateen waxay kaga duwan tahay cid lacag lagu ma jirto cid lacag nagu lihi maanta yani waxaa jiri kara un qof amaan soo shaqo tegin ama aan account furan ama uun yar oo si yaroo kalaa mooyaane laakiin dee qofkii shaqeeyay lacag soo helaya sideedaa bilood qof walba lacag soo helay intooda badanna account baa loogu shubay iyagu leeyihiin soo madan kara iminka December baa hadhay Decemberna waan bixinaynaa markaa sanadka sideedaa bilood ee meesha aan joogna ama 9 bilood iyo waxay mooyaane qof walba lacag soo helay waxa deyna waxabay ka mid tahayba warqadan aan saxanayaan ku lahaa SMP baa la yiraahdaa ayaa ka mid tahayba inaan deyn lagu yeelo ya systemkay halka ka eegayaan in deyn lagu leeyahay kale waan ka dhacaynaa hadii wax la nagu yeesho mana aqbalayna naga lafteed mushaarana la nagumana yeelan doono hadii ilaahayna yiraahdo la nagumana yeelan doono marka waa arrin guul oo aan gaadhnay weeye ya arrin guul aan gaadhnay ayay tahay marka waa kaas waa fiicana aad baan u fiicana dabcan cashuuruhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha kaba shaqada dawladda iyo guud ahaanba dalka in dawladnimadu si wanaagsan u shaqeyso goormaad cashuurahaas bilaabaysan waasa kuwa hadda aad qaadaan cashuuraha dawaaba la qaadaa oo qaar kastamka lagu qaada baa jira dadku waxay soo dejiyaan kastam baa laga qaadaa cashuuraha intooda badan noo dhiman yihiin waa kuwa beriga cashuuraha beriga dalkuna waxa ku dhisan yahay inta badan waa cashuuraha beriga halkaas lacag istaala halkan wax yar laga soo dejiyay Mumbai marka wax laga qaaday maarta cashuuraha waa bilaabaynaa waanan bilownay si degdegana waanu bilaabaynaayo annaga iyo dadka Soomaaliyeed inaan wada sheekaysan dhaweey ya inuu wax dhacna ma rabno shaki badan baa dadka ku jira sas baa ku jira sas ya
waa dadaan cashuur bixin muddo dheer marka isbarashaa loo baahan yahay waxaa lagu falaya laga dhaadhiciyaa loo baahan yahay sidii ay u barteen in wax laga xoogo inaan ahayn baan ayaa loo baahan yahay inay dalka aan wada dhisno ayaa loo baahan yahay ya inayna aaminaan baa loo baahan yahay ya inaan qof walba waxoogaa haystaba laga xoogay ee ay tahay qof walba intuu hayo intuu ka bixin karayaa la ogaanaya horta qofku waa inuu noolaadaa soo mogi qofku waa inuu noolaadaayo aanad dhibaataynin dhaqaalaha aanad hoosta gelin dad wax walba cashuur baa ku qaadaysa dhaqaalaha hoosta gelaya marka wax dhaqaalahan ay kubciya ya ayaa la doonaya waxna lagu qabto qofkana wax badan yeelin oo wixii yaraayo la soo ururiyo wuxuu noqonaya ya marka bilowgeedu waa noo soo socdaa muxuu ahaa budgetkan 2018 kana 2018 kana waa noogu jiraan sharciguna wuu jiraayo de sharci waxaan ahayn waxba lagu qaadi maayo ya arrinta ku saabsan miisaaniyadda markaan ka hadlayno arrinta ku saabsan miisaaniyadda kale markaan ka hadlayno 70% waxaad ku salayseen dakhliga gudaha laga helo miisaaniyadda sanadkan sidee arrintaas ku suurtagelay bal noo faahfaahay budgetku ama miisaaniyaddu waxna waa dakhligii waxna waa kharashkii labaduna isku miisaanaadaanna waa la doonayaa hadda waxa miisaaniyad baa loo yidhi waa labadaas isku miisaaman dhinaca dakhliga waa 3 qaybood mid waxa weeye waxa cashuurta ururso adigu ya midna waxa weeye mashaariicda adduunyadu keento oo World Bank iyo African Development Bank iyo Islamic Bank iyo waasa keena waa mashaariic weeyo dalka oo dhan bay mashaariic ka yihiin oo way garab socdaan midna waxa weeye kharashka joogtada ah haddii aad dakhligaagu bixin kari waayo kab baa la yiraahdaa kabkaasoo meel ka imanaya saddexdaa weeyaan waxaan markaa doonaynaa anagu in lacagta inaga soo baxaysa ee dakhliga gudaha ka soo baxaya inuu sii bato oo kabkaa layna siinayaa baa meesha ka baxo mashaariicdu way jiraysaa weligeed way jiraysaa always bay jirto dee hadda waxyaalo waaweyn baa la dhisi doonaa marka waxaan doonaynaa dakhligu inuu kordho kabka aan ka sugayno magaalo kale ama meel kale inuu baaba'aan doonaynaa marka kabka iyo labada marka la isku daro dee 100% inay cover gareeyaan weeyaan mushaarooyinka iyo waxyaalaha aan ka hadlayna maanta marka waxaan rabnaa maanta ku talagelinaa dakhliga naga soo galaya inuu daboolo 70% maybe